يا أيها السلفي خذ بنصيحتي واسمع هديت إلى رضا الرحمن ودع التعصب للرجال فإنه دين اليهود وزمرة الشيطان وإذا تنازع عالمان فدعهما للشرع لا للظلم والعدوان لا تنتصر للنفس أو لمعظم من غير ما دين ولا برهان فالكل آت في القيامة وحده والحكم لله العظيم الشان. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وحلقة أفراد تحنيه أي نقوم قاعد الري إذا عرف السبب بطل العجب قيبتيسي تاريخي هايت كواد xalqadii tan ka horeysay waxaynu tilmaamnay oo ka warranay taariikh na soo dhaxmartay طائفadan ama jamaacadan dacawiga ah waxaan ka soo warramay qaabkii aanu xiriirkii ugu horeeyay u yeelanay ama meeshay naga soo galeen waxaan tilmaamay markaa marxaladihii kala duwanaa aan la soo maray marxalad faham ah marxalad isku day ah tasxiix marxalad buxuuth rag soo diyaariyeen ama majlisul cilmigu soo diyaariyey la isla soo maray waxaan tilmaamay jalasaadkii Hargeysa ka dhacay oo markii Hargeysa kulankii markasul ihsaan ka dhacay la diiday masaa'ishan ay tani ka mid tahay in laga hadlo mu'tamarka ama kulanka dhexdiisa iyo ka hor iyo kadibba isla markaana ay soo dhex gashay majliskii muujisayna inay tahay mas'alo lagu kala duwan yahay kadib ay noqotay in bal xajka la yiri xajka la isugu yimaado xajkii sidaan horeba u tilmaamay rag badan oo raggii maalinta kulanka fadhiyay may iman sababtay doonaanba yaanay u imanine kollayba ma suuroobin inay yimaadaan ku yimid qaar ka mid ah sida Sheekh Abdullah ibn Baraawina uu noo jaray waxaanu kulannay markaa Sheekh Ahmed Eid iyo Sheekh Hussein Abdi Cilmi iyo Sheekh Maxamed Hussein Abu Abdurrauf xagga majlisul cilmigana aniga iyo Dr. Khadar iyo Dr. Hassan iyo Sheekh Hassan Macallim Daawud ayaanu ahayn su'aal baan weydiinay markaa ah masaa'ishan aanu ka warramaynay aanu ka hadlayno qaarkood qoraalada laga sameeyay ma yihiin masaa'il khalkhal dhexdeena uu ka taagan yahay oo u baahan in la saxo way qireeno haabay yidhaahdeen Sheekh Ahmed Eid iyo Sheekh Hussein Abdi Cilmi iyo Sheekh Maxamed Hussein way qireen in uu khalkaasi jiro cilaajna u baahan yahay waxaanu ku niri hadaba cilaajkaas sharti ma aha anagu inaanu dood ka dhigno arinta shartina ma aha inaanu idinku khasabno waxaanu qoray laakiin waxaanu doonaynaa in aad hawsha masaa'isha si cilmiya loo cilaajiyo waliba waxaan ku yiri sharti ma aha meesha lagu cilaajinayo in aanu fadhino buxuuthtan la qoray intaad qaadataan masaa'ishan aad qiraysaan in khalal ka jiro intaad cilaajisaan waxa weeye haddii annaga wax naga khaldan yihiinna noo soo gudbiya oo masalada taa iyo taa ku khaldanti suurada sayyi la iftiraadaya laga dhigayo in aanu annagu doonayno inaanu caan baxno oo aanu leenahay noo soo fadhiista waa suuro غير xaqiiqiya weeye aan xaqiiqo lahayn taariikhdaas ka marxaati kacaysa taariikhdan in la sheegana haba qaraaraato dadka qaarkood ku qaraaraatee oo xitaa aniga oo ka hadlayaba aan dibsado ka hadalkeeda laakiin taariikhda marka la taswiiriyo waxa khasab noqonaysa in laga hadlo
mukrahun akhaaka laa batal. kadib ballan bay noo qaadeen, waxay yidhaahdeen maadaama culimmadii aanay soo xajin waanu noqonaynaa, weliba hawshaa waxaa dhabarka u ritay sheekh axmed ciid iyo sheekh xuseen cabdi cilmi in marka ay noqdaan ay kulminayaan culimmadii masaa-ishanna si cilmiyana looga hadlayo, natiijadana lasoo gudbinayo. sidii baana majliskii ku dhammaaday, waa la kala tegey, xajkii waa laga soo noqday. dabcan annagu arday baanu ahaynoo de xaggii baanu joognay madiina, anigaa tansiiqa qaabilsanaayo la soo hadlayay. markaan wiig ama 2 wiig joogaba waan la soo hadlaa, marba waxbaa lagu tacaalulaa. intaa kuma joogsan rag kale oo aanu aqraan ahayn oo cuqaal iyo mashaayikhba leh iyagana waa u diray oo masaa-ishan in laga hadlo oo si cilmiyaysan looga hadlo, oo waxaanu dareemaynaa in dulmi fara badan ka dhacay la hagaajiyo la soxo ayaanu matlabka iyagu intaasu ahaa. 2 bilood markii ay aamusnaayeen wadaadadii ee marba ay lahaayeen halkana wax ka dhaceen, sidanay u dhacday 2 bilood ka bacdi ayaa galab jimcaha bacda alcasr anigoo jooga magaalada Jidda, gaar ahaan hoolkii maktabul jaaliyaadka jaaliyadda Soomaalida maktabkooda oo muxaadaro iyo dacwad mujtamaca loo soo jeedinayay oo ka soo qayb galay. bacda alcasr ayuu soo garaacay sheekh xuseen cabdi cilmi, wuxuu igu sheegay, wuxuu markaanu fadhiisanay waxaa noo muuqday masaa-ishaasi waa lama taabtaan, lagana hadli maayo, marka waxba hadaalinay hawshaa faraha ka qaada, go-aankii culimmaduna waa sidaa, masaa-isha tootali lama furayo. ma sidaasa waan yaro mashquulsanaa, ma sidaas ahaa, waaye jazaakum allah khayr baan ku yidhi. subaxdii ayaa waxaan soo garaacay sheekh iimaan maxamed diiriye, waxaan ku yidhi sheekh xuseen warkaasuu soo gaadhsiiyey, warkuma sidaasuu u jiraayo wuu idin wada matalaa. sheekhu hadal dheer ka bacdi wuxuu igu yidhi haa waa sidaa weeye. waxaan la soo hadlay haddana isla waqtigii sheekh cuthmaan maxamed ismaaciil, waxaan ku yidhi warkaasaa laysoo gaadhsiiyey, warkuma sidaasa? haa. weliba wuxuu igu daray waxyaabo badan baa jirjira, waxyaabaha badanee jirjira uu sheegayaana waxa weeye waa tii aan majaalisteyda qaarkood ku sheegayo, masaladan waxa ka dambeeyaa la garanayaa. sidaa daraaddeed haddii masaladan la taasiiliyo, wada jooggoodii iyo wada socodkoodii ayay dareemeen inay burburayso la kala tegayo. marka wuxuu waxyaabo badan baa jira, annagana waxay nagu tuhmeen masaa-ishan waxaad u baxdinaysaan ee aad noo leedihiin go-aanha laga soo saaro, cid baad u xaglinaysaan, cid aanu ishayno ayaad u xaglinaysaan. dadna waxaanu ku nidhi masaladu cidday doonto ha ayido, masalada cilmiga ahi waa cilmiyo, cilmiguna waxaa matluub ah in isaga la raaco, cidduu doono ha ayido. haddii masale cilmiya ay cid ayido, dee inaguna waynaynu ayidna, haddii ayidi weydana waynaynaan ayidin. intaasi markay dhacday ee arrinkaasi uu noqday mu'akad in wadaadadaasi ay diideen masalada cilmiga ah in sina looga doodo, sina la isu weydiiyo, doodba mahaysa in la isweydiiyaba ay noqotay wax khaldan ay noqotay. waxaanu go'aansanay markaa inaanu cilmiyan aanu masaladii annagu wax ka mida u soo bandhigno. burcaanu nimid nadwaanu iclaaminay. dabcan nadwa waxay ahayd dowro mustamir ah oo sanawiyan la qabto. anshidadii la socotay ee musaaxibka ahayd baa waxaa ka mid ahayd nadwo ciwaankeedu ay ahayd qadaaya dacawiya mucaasira, oo aanu ka warramayno tanaawulaynay aniga iyo doctor xasan sheekh cali. iclaankii markii la dhajiyey, laakiin aan nadwadii la qaban, ayaan rag akhyaaroo aanu isku talabka wadaagnay oo aqraan aanu ahayn oo culimo iyo cuqaal iyo salaatiin intaba leh, ayaa waxay dareemeen arrintani inay xoogaa saaxada balbala ku keeni karayso. waxay yidhahdeen waqtina siiya, annaga mashaa'ikhda bal arrinkan aad dalbanaysaan annagaa ku soo qancinayneen. waa loo tegey akar min mara loo tegey,
waxaa lagala soo noqday diidmo. waxa la diidayaa waa maxay? waxa la diidayaa ma aha iladood ma aha. waxa la diidayaa masaa'ishan si cilmiyaha looga hadlo oo sida cilmigu ina tusay aynu qaadanno. masaladu waa taa ma aha hebel baa hebel doonaya oo iladooda doonaya inuu isku muujiyo. sababtoo ah akthar min marra ayaanu ku niri sharti ma aha annagu xitaa inaanu majlis cilmigu inuu soo fadhiisto meesha masalada lagaga hadlayo. baxsigan uu majlis cilmigu qoray ma aha shardi in isaga laydin hor keeno ee masalada canaawiinta leh si cilmiyeysan oo waadix ah in looga hadlo. markii ay dhacday diidmada qayaxan ay meeshii timid go'aanku wuxuu noqday nadwadii in la qabto. nadwadii markii la qabtay waxa dhacay in aanu raggii aanu talabka wadaagnay iyaga markaa maraakistooda joogay inaanu fadhiyo isugu nimaadno masaladii inaanu ka wada niqaashno oo maalin maalmaha ka mid anagoo tobaneeye ah inaanu fadhiisanay salaadii dhuhur ilaa cishihii. masaa'ishii markaanu ka wada isla eegnay waxay qireen oo ay isdhiibeen mas'aladani xajmiga la siiyey iyo meesha la dhigay iyo sida loogu celcelinayay inaanay ahayn. arrinkii markii uu suuqa soo galay ee raggii ay islahaayeen maraakis bay idiin hayaan la gilgilay ayaa waxa dhacday inay habeen jamciyeen wixii dhalinyaro atbaac iyaga u ahaa ay ku jamciyeen masaajidka la jaamicul khayr ee Burco ku yaala ay isugu yeedheen goor dambena lagu gaaray. taasoo maqsuudkeedu ay ahayd labadan diktoor iska ilaaliya. su'aalo badan oo la weydiiyay inay ka jawaabi kari waayeen oo ay ku dhiiran waayeen inay yiraahdaan waa niman ahlul bid'ah laakiin ay ku wareegaaleysteen iska ilaaliya waxay wadaan shubuhaat. ya subhanallah qof kula cilmiyan masaladan iga qanci shubuhaat buu wataa waa wax runtii taariikhdu ay sheegi doonto oo ajyaalul qaadima ay ka warrami doonaan insha Allah ta'ala. habeenka jalasaadka buuq baa ka dhashay su'aalihii la weydiiyey. subaxdii markuu waagi bariyay warkii aanu helay ayaanu u yeedhnay raggii mashaayikhda ay halkaa fadhiyay nin ka mida aniga iyo Dr. Xasan Sheekh Cali. waxaanu waxa dadka nooga digaysaan aad leedihiin ha laga fogaado bal noo sheega. masaladii waxa ka soo baxday xaqiiqada murka ah oo sheekhaasi uu nagu yiri ardaygay anigu aan wax baray ee alif wax male aan uga soo qaaday baa doonaysan markuu wax bartay inuu iga dhaqaaqo dad kale u tago. waxaan ku yiri haddaad u baraysay inuu adiga adoon kuu noqdana khasirta fi dunya wal aakhirah. haddaad u baraysay inuu cilmigan aad bartay uu hagana meeshuu doonaa taga maxaa kaa galay la askari maahe. waxa kale aanu tanaawulay masaladii su'aal baan weydiiyey. waxaan ku yiri masaajid baa joogtaan sunna la yiraahdo dacwad wadaan salafiyad soomatiin haa salafiyadu ma inta sunna ku tukata unba ma yabuu yiri. waxaan ku yiri waayahay hadda dacwad wadaan ka soo qaad magaalada taraf kale ayaa qolo kale salafiyiin iyaguna masaajid ka asaaseeno iyaga aan idinku xidhnayno iyaguna dacwad salafiya halka uga khidmeeya ka waran way banaanta. oo mid saddexaad baa isaguna xaafad kale u boodo isna yiri anigu labada qolo waa salafiyiin laakiin dacwadeeda anigu mustaqil baan noqonay aniga wadaya bal taana ka waran. markii uu arkay sheekh meesha arintu socoto yiri iga joojiya waan ka noqday masaladii imika aan idin tandiiray. يعني قضايا بهذه الطريقة. انت كبعدي waxa cadaaday wax badan oo qarsoona markaa in ay yowm bacda yowm sii cadaadaan taasoo daliil u ah in meesha uu yahay tanziim ama xisbi ama jamaaco xaqiiqadiisu ay tahay inuu jamaaco iyo xisbi uu yahay ka غيره من الجماعات الدعوية laakiin aan doonaynin inuu muujisto sababta aan u doonayn inuu muujistaana dadkii kale ayuu wuxuu leeyahay waxaanu ku haystaayo farqi noo dhaxeeya uu yahay waa urur anna urur ma yihin. هذه هي القضية. qadiyadu halkaas ayay salka ku haysaa. kadib waxa dhacay kulamadii inta ka dambeeyay iyo buuqi iyo kulamadii gaargaarka ahaa oo dhammaantood ay ku wareegayeen ama isaga badnaayeen
qaar itihaam ah qaar barya ah oo sheekh cabdulaahi makaawi oo uu sheekh axmed soo daliishanayay oo uu lahaa jamaaca uu isagu sheegay uu ku soo jiray oo kadibna uu yidhi 30 sannadood baanu khaldanayn raggii ila kulmayay buu ka mid ahaa ee weliba hawsha gaadhsiiyey baryada gaadhsiiyey ee yidhi adeer waan ku baryayaa waxa weeyaan hanaga teginoo hanaga dhex bixinoo waxa su'aashii isweydiintu ay tahay waxaan ka tegayaa waa maxay ma ciddii ka tagtaa ma sunnadii iyo khayrkii iyo diintii bay ka tageen ma yataa uma jeedaane waa ururka ka tagin way macnaheed waliba wuxuu igu daray oo isagu daawis lahaa masaa'ishan ay ka hadlayaan cid kale doonayaan inay u galaan oo ama ay qabtaan ay isagoo taa doonayeen oo ii bahla geliyo wuxuu igu yiri qolada aniga ka aqaano 30 sannadood baa la soo joogay waxaan ku dad qolada 30 la soo joogtaana qoladana ka aqaana qolada dhimka u timid ayaan ka aqaanaa iska ilaali على كل حال عرضك تاريخي ku salaysan runtii ujeedada aan ka leeyahay ay tahay in aan iftiimiyo ama aan cadeeyo qadiyadan aan isku hayno hawla buuqan iyo social media ka dhalisay meesha ay ku salaysan tahay taariikhda aan la soo maray sababtoo ah waxay tashkiikiyeen qaarkood ay tashkiikiyeen markaan yiri 96kii ayaan khaladkiina aan tilmaamayay ma oran waan radinaya hadalkiina dib baan oo dhageysan karaa oo qaarkood ay yiraahdeen siday isu qabanaysaa adiga oo hadana intaas oo dambe ku sii la joogay oo la og yahay dowrooyinkii aad qaban jirtay siday isu qabanaysaa taana jawaabteedu waa basiido waxa weeye inaad shayga tilmaamto ama aad ishaarto ama aad halka khalad baa ka jira adiga oo buuqiyo dibadda aan u bixin waa shay qofka lagu ammaano oo tusaysa deganaansho iyo inuu hawsha cagta loo dhigo oo marba si lagu dayo ayay daliil u tahay marna ma oran intaan bannaan u baxay baan cid radiyay caadadeedana kama mid ahayn iyagana calanan uma radin jirin cid kale oo layga duubay oo calanan aan u radiyay ama ashkhaasana ma jirto wixii anigu aan radinayo wixii turuqda sharciga kala duwan oo nusxiga iyo sirriyada in la isugu nasteexeeyo iyo in waxa weeyaan turuq fara badan loo maro marka waxa soo dhan laga caalwaayo ayay timaadaa in si calana waxa weeyaan wax looga hadlo marka taariikhda kooban intaas ayaan ku soo gunaanadaya ee ku saabsan taariikhdii aniga iyo iyagana soo dhaxmartay إن شاء الله تعالى حلقة تنكو حكتا وحن كغا ورمي دونا حلقة شناد بل يغا لفتودا إن لم يلعصدوا إيا وحييهين إيا قابكا يكو باللابمين إيا وحيابها قفكا أي سمينيان لو باهيين لوغا نستحيو هلكا وحينو غا حلقة دي أفراد والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين